garada goofar waaqa intu geelu badi dhalay xareedu jiifta godanada kaafiyo aroosiyo guri ku gaangamo xariirkaaga dhiga gogol sida geeyadii bariyey gujiniyo saraariyo ubadsoy lagu furay galabtiina mayracay gar adag la daajo ilbis loo habeeyey marka la tilmaamayo horumarka ay gaadhay degmo waxa laga qiyaas qaadanaya dhinacyada wadooyinka dhismaha guryaha cusub iyo sidoo kale ganacsiga ka soo muuqday deegaankaasi halkan waa degmada Garadaga galbeedka gobolka Sanaag wana degmada hooyada u ah amaba afaafka hore laga soo galo gobolkan Sanaag waa degmo taariikh fac weyn ku leeyahay dalkan Soomaaliland waxayna ku xusan tahay amaba ay baaldahaba kaga taala halgankii dib u xoreynta qaranka Soomaaliland waxaana la meelawana gulihii wax ku oolka ahaa ay ka soo hoysay saddexdii doorasho ugu dambeeyay ee ka dhacay qarankan Soomaaliland mudan in ay Garadag tahay hooyada xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo halka laga sidoo kale lagu gardaadiyay iyadoo ilaa haatan guusha taladan u dhabta ku sidoo xisbiga muxaafidka kulmiye Garadag waxa la digay qiyaasii taariikhdu markay ahayd 1936 waqtigii Ingiriisku haystay dalkan Soomaaliland Garadag waxa ku yaala geed caan lagu magacaabo gob Garadag oo ah geedka wax garadka iyo sidoo kale samataliska wana geed ay ku xisaabtamaan bulshooyinka Soomaaliland markay xaaladdu guracanto laga soo bilaabo 2012 doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday guud ahaan qarankan Soomaaliland waxay shacabka reer Garadag iska dhex doorteen 13 xildhibaan oo golaha maamul doona degmada Garadag sidaas oo ay tahayna waxay xildhibaanadana si hagar la'aan u doorteen in 5 sano soo socoto maamulo gudoomiye Faarax Aadan Ciise waxaana xusid mudan marka dib loo milicsado ka hor doorashadii 2012 sanadkan 2018 in faraq weyn u dhaxeeyo degmada Garadag labadaasi waqti marka la helo maamul u carbisan shaqada ay qabanayaan ayna bulshadu u soo jeedo waxa la gaari karaa horumar ay ku talaabsato degmooyinka dhigeeda Garadag waxa muddooyinka soo dhaafnay ka soconaya horumar aan la ilaawi karin isla markaana lagu xasuusan doono maayirka degmada Garadag iyo waliba xildhibaanadiisa sidoo kale Garadag waxay ka mid tahay degmooyinka la majeerto waqti xaadirkani marka la soo hadal qaado guulaha xisbiga kulmiye gaaray waxa maskaxda caafimaadka qabta ku soo dhacaysa inay Garadag tahay hooyada xisbiga kulmiye isla markaana xisbiga xambaarta guusha hantido degmada Garadag waxa waqti xaadirkan ku soo badanaya dhismaha wadooyinka dhexmara xaafadaha dhismayaal guryo cusub agabka gaadiidka ciidamada iyo sidoo kale gurmadka degdega ah martida xabsiga ugu weyn gobolka Sanaag oo hirgeliyay gudoomiye Faarax Aadan Ciise oo kaashanaya golihiisa deegaanka sidoo kale maamulka Garadag waxa uu xal u helay maareynta iyo sidoo kale maamul dejinta bulshada ay ka baxeen isla markaana soo galay gudaha magaalada isku soo wada duuba horumarkan ka socda degmada Garadag waa mid aan indhaha laga qarsan karin isla markaana u baahan in la isla barbar taagan laguna taageero maamulka hawshan shaqo ay gacanta ku hayaan Axmed Jaamac Aadan Axmed Digro telefishinka caalamiga Soomaaliya News TV Boorco